wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal uu soo saaray ku jeediyay dhaliilo iyo sidoo kale xaalada siyaasadeed oo si toos ah u taabanaya xubnaha mucaaradka xilli ay dalka taagan tahay dood la xiriira jihada siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka. wasiir Fiqi ayaa qoraal uu ku cabiray xaaladda mucaaradka sheeko ka dhacday isbitaal Laasreeti oo lagu daryeeli jiray dadka qaba xanuunka dhimirka. wuxuuna tusaale uga dhigay saddex bukaan oo midkood isku sheegay inuu yahay dhakhtar isagoo sheekadaasi ku xiriiriyay koox siyaasadeed oo uu sheegay in muddo ay aamusneed balse ay mar kale dib u bilowday hadaladii iyo sidoo kale dhaliilihii siyaasadeed. wasiir gaashaandhigga isagoo adeegsanaya tusaalahaas waxa uu sheegay in aamusnaantii mucaaradka ee todobaadii la soo dhaafay loo fasiran karay inay ka soo kabanayeen balse uu hadda arkayo inay dib ugu laabteen waxa uu ku tilmaamay boodbood siyaasadeed. qoraalka ayaa sidoo kale ku soo dhamaaday hadal uu wasiirku ku sheegay in daawada dhabta ah ay tahay doorasho qof iyo cod ah. qoraalka Axmed Macalin Fiqi oo wasiir gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ay si weyn uga kala duwan yihiin hanaanka doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo marxaladda siyaasadeed dalka. mucaaradka ayaa hore u muujiyay walaac la xiriira hanaanka doorashada iyo jihada ay dowladda u wado siyaasadda halka dowladda federaalkuna ay ku adkeysanayso in doorashada qof iyo cod ah ay tahay jihada siyaasadeed ee dalka u wado. inkastoo qoraalku wasiir gaashaandhigga xambaarsan yahay warar afka oo loo jeediyay mucaaradka haddana hadalladan ayaa qayb ka noqonaya dooda siyaasadeed ee sii xoogeysanaya iyadoo labada dhinac ay weli isku hayaan arrimo la xiriira doorashooyinka heshiisyada siyaasadeed iyo qaabka loo wajahayo mustaqbalka dalka. dooda siyaasadeed ayaa sidaas u muuqata inay mar kale sii kululaanayso iyadoo loo baahan yahay in khilaafka ka jira lagu wajaho wada hadal iyo sidoo kale hanaan siyaasadeed oo dhinacyada kala duwan ay ku wada qanacsan yihiin si looga fogaado loolanka siyaasadeed iyo sidoo kale inuu isu bedelo xiisad dhaawacda xasiloonida dalka. muddooyinkii la soo dhaafay mucaaradka ayaa waxay ahaayeen kuwa aamusan iyagoona wax war aan soo jeedin balse haatan waxaa weerar afka ku qaaday kadib markii shalay ay soo hadleen wasiir gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi iyagoona mucaaradku ay si weyn uga hadleen arrinta doorashooyinka dalka taas oo ay ku tilmaameen mid ay ku shubanayso dowladda federaalka Soomaaliya taas oo ay xataa gaartay inay soo bandhigaan ama ay ka hadlaan arrin doorashooyinka ka dhacay Galmudug taas oo si weyn muran xoogan u dhalisay muddooyinkii la soo dhaafana warbaahinta si weyn u heysay. Axmed Macalin Fiqi oo wasiir gaashaandhigga ayaana waxa uu weerarkaasi ku soo aadaya iyadoona xaalad dalka muddooyinkii la soo dhaafay mucaaradka sidoo kale siyaasiyiinta ay ahayd mid degan sidoo kale beesha caalamka ay wadii waan labada dhinac lagu qancinayo.